السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad asxaabtayda qaaliga ah, janaalka waa janaalkeeni, waa Fuusiya Secret Recipes Channel. Maanta waxaan idiin wadaa bariiskaas quruxda badan iyo hilibkaas la isku sheelay qada macaan badan. Asxaabtayda cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada, subscribe saara meesha gaduudan ku dhufta oo ma aragtay lacag in kaga ma baxayso. Qofka hore u joogan waxaan idin leeyahay hore u sii joog, aad iyo aad u mahadsantihiin. Ila kariya hadda qadada waa tanaaye. Inta waxaan kusoo shubtay saliid iyo basal ayaan isku soo shiilayaa sidaan hore u naqaanaybo ilaa ay kasoo guduutaan kaaliska arag. Marka basasha shiisho uduggeedana wuu ka bedelan yahay. Markii aad shiilin waxaan kusoo darayaa yaanyo aan soo shiiday ilaa xad inta adiga kugu filan. Kadibna si fiican aan isku soo shiilayaa cabaar. Shiilo lama gaarin oo isku soo karinayaa intii biyaha kasoo yaraanayaan yaanyada ayay dibka soo saarnaanayaan muddo cabaar ah. bariiskan haddaa kasoo tuurtaan waa ka sheekay doontiin macaankiisa iyo dhadhankiisa. Haddii ilaahay idmo waxaan inka codsanayaa inaadna fiirsan keli ah aad ku tuurtaan idin dhahay qadada baa ka dhigtaan berri insha Allah. Qofki maanta fiirsada waaya adi maalinkaa fiirsata berideeda ka dhigo. Marka waxaan kusoo darayaa shiishiid oo ilaa 3 qaada ah. Bariiskan waa bariis xoogay brown camal oo aad mu gudubno laakiin xoogay kalar culus uu leeyahay. Marka 3 qaado shiishiidaan kusoo daray. Waxaan kaloo kusoo daray paprika, barbarooniga shiidan oo budada ah oo 1 qaada ah. Marka suugadan shiishiidkaas culus ku dartid, shiishiidka biyaha ma isticmaalay, shiishiid culus aa isticmaalay. Waxaan ku dhahaa soor camal u taqaanay marka iska dabool jikada agaarka dhan ee ka wasaqeynaysa ay macal digsiga. Waa arkaysiin fafaniinkeeda meel ay gaarinin malahan. Xataa daboolka kor isaga xijinooya indhaha iga faninoosa. Marka suugada waa taqaynaysa si fiican u taqaynaysa dabka aad muu dheero. Cabaara isku soo shiilayaa. Hadii ilaa xadii soo shiilantay adinka waa idinka jarjaraa fiidiyooga. Si fiican u soo shiilay kadib waxaan kusoo daraa qudaartaas isku dardarka ah oo cagaaran iyo liin iyo raq ayaan isku daray. Marka qudaartaas cagaaran waa digirta dheer oo aan soo jaray. Sidoo kale digirta kuskuuska cagaaran, baradho, karooto, bahasho sukiin la dhahay adi wixii ku yaalo ku darso ma fahanti. Baradhada bisa iyo karootada xataa kugu filan daarabto iyo digirta cagaaran. Marka wixii adiga jecesho ku yaalo ku dhex darso. Qudaara laga raaca maahan oo magac qudaar. Marka cabaara isku soo kariyay baradhada inay kaa karto ma fiicna sababtoo ah kaa karto hadhowtu way kaa burburay maahan oo bariiska ku karinaysaa. Waxaan kusoo daray toon iyo sinjibiil aan isku soo tumay. Basbaas yariisan oo ku daray iyo xawaaji burbur aan soo shiiday. Intaasaan kusoo daray. Kadibna waxa waa cabaara isku hurinaya. Xawaaji kale ma aragti sii shiidanayay oo yaala. Sidoo kale ma idin tusin fiidiyooga laakiin cusbo waan ku daray. Marka baradhada inay kaa karto ma fiicna hadhowtu bariiska cabaar hadana karaay maahano. Xawaajigi waa kana soo samaystay waan ku soo darsaday. 1 qaada camal bariis inuu xawaaji kasoo dhadhamaan jeclahay. Hadda nacabta xawaajiyaasha iska yaray. Marka bariiska hore u soo dhaqay. Waxaan ku soo dhaqay kaas shabaqaas si biyaha uga sii baxaan oo bariiska igu shiilmo. Marka si fiican u soo shiilaya dhowr daqiiqo camal. Waxaan soo karsaday oo dabka wali ii saaran lafa geel ayaa dabka ii saaran. Lafahaas geela waxaan ku soo daray 3 xabo camal oo maraq digaag ah iyo xabad oo Royco cube ah ayaan ku boil gareeyay oo maaragtay isugu kiisii burayaan iyo karootana aan ku daray. Marka maraq wuxuu noqonaa dhadhan fiican. Maraq digaagana marka maraqa ku burisid maraqo asagana ka sii dhigaya. Marka maraqaas khatarta ah dabka ii saaran lafaha geela maraqooda caadi ma ahan. Inta waxaa sidoo kale baradhada intusaayay inay iga karina intusaayo wax badan u dhiman yihiin. Waayo hadda iga karta hadhowtu waxa waa iga burburaysaa saaid iga burburaysaa. Marka waa kana maraqii oo ka samaysan karooto iyo lafa geel, lafaha dhuuxa leh iyo maraq digaag oo isku soo buriyay xataa xawaashan ku daray, cusbo yar aan ku daray marka dhadhankiisa dhan oo maraqa wataa. Waa kana dabkan ku soo shubay. Daboolka u dheereynayna bariiskeena insha Allah. Bariis waxaan ku dhahay lafa geel ku kari. Wariga soo si asxaabta hore ugu karsan jirtana ayaga way yaqaan war laga siinayo kuwaas. Marka ila soo tijaabiyo insha Allah. Maraqa bariiska dhowr nooc ah u samaystaan waa idin soo gudbi doonaa hadii Ilaahay insha Allah. Bariiska markuu biyihii ka yaraaday waxa waa aluminium aan kusoo daboolay. Cabaaran soo huriyay. Marka waa kana waxaan rabaa inaan intuso waxaas dheecaankaas hadda idin muuqdo. Wax weyn ma aha wax yar oo soo buriyo hoos. Waa ka qalalin bariiska waa u jeedin.
soo bisaad bardhada haday aad booboodeys waa taasa waa maaragtay diyaar ay noqotay way is dhiibtay hilibkii aan rabaa inaa ila karisaan oo ila shiishaan marka insha Allah bariiskeena hadda ujeedaa soo qurux badan yahay cunuu diyaar yahay hilibkii aan hadda soo qalaysanayna hadii ilaahay insha Allah waxaa inta ayadana kusoo shubay sidoo kale basal ma laga maarmaa wax kasta bilaawgeeda basal iyo saliid maahano marka inta basashii saliid yaa cabaar kusoo qalaysanayna hilibkan waxaan isticmaalayaa 1 kiilo oo ah hilibka meesha u jilcan yahay yaa meesha uu ka jilcan yahay hilibka aan biyo dhan ku karinaayo hilibgeena sirtiisa dhanba waxa waaye inaad biyo ku karin hadduu ma ogi hilib adeeg ah oo neef qawaar ah oo duqoobo lagu siiyo caata ah laakiin hilib geel oo meel jilcan ah haddaa soo gadatid oo jiir ah ina biyo ku kariso ma baahna marka biyo ku kariso lugta taaga ama bislaanay dhadhankan uu ka tagay macaanku marka waxaan kusoo daray toon iyo sinjibiisha qoyneed iyo xawaaji yaa kusoo daray iyo paprika yarna aan kusoo darsaday sidoo kale waxaan kusoo daray filfil waxaan kaloo kusoo darayaa cusbo iyo hal xabo oo maraq digaagana aan kusoo darayaa wax kasta hal mar lagu shubayaa meeshaanayto biyo dhan ma lagu karinayo hilibkan xabad maraq digaaga ahayd kusoo burburiyay kadibna si fiican isugu qaleynaya hadii la haydmo marka hore waxaan sugayaa hore kama xiraa in digsi pressure cooker ku karinayaa hadaadan haysan pressure cookerna dabka u gaabinay digsi waxaa saaray culus daboolka u dheereynaysa biyo ma ku dareysid biyaha asiga u dhalan leh ku karinay marka waxaan kusoo darayaa hal qaado oo soya sauce ah waxyaabahan aan ku daray muhiim ah hadaa basal iyo toon haysatid oo ku dartid waa kaaga filan tahay ma fahanti hilibka waxwaajina ku darsatid hadaa dhadhanaanka rabtid oo ku yeelana ku darso marka hilibki waa soo qaleynaya marka hore kadibna daboolka anoon pressure-ka ku xirin ayaa caadi u kor saaraya si uu dheecaan u soo dhalo waayo asoon wax dheecaan dhalin hadaan pressure cooker ku xiro hore ka gubanaa maahano marka kana xogaa yar biyo soo dhalo hadda ma aragtiin waa walaaqaya qartama daboolka ugu dheereynaa ilaa 13 daqiiqo ayaan ku xirayaa pressure cooker-ka insha Allah wuuna kugu karayaa hilibkaada 13 daqiiqo hilibaan baraf ka soo bixiye waaye oo soo dhalaaliyay laakiin markuu fresh yahay oo kawaanka laga keeno 13 daqiiqo 10 daqiiqo ku filan 10 daqiiqo hadaa biyo ku dar hilibgeel waa bisil yahay markuu hilibgeelku kareyno oo 2 saac dabka saarnaanayo waa marka biyo ku darto marka ila soo tijaabiye sirtaas asxaabteyda qaaliga hilibgeelka hadaa ku dhiban tahay biyaha ku karinin basashaadii waxaad ku qaleyso marka hore biyo ka keen kadib pressure cooker-ka u dheereyso hadaadan haysan pressure cooker-kana digsi culus ku saaro dabkana u gaabi intuu biyo ka dhalay biyahaas kugu karaayo marka basal iyo barbarooni aan kusoo daray hilibkeena waa kana waa soo shiilanay kadibna qado iyo casho waxaa rabta aad u baxso anaga cashay noo ahayd saan noogu diyaar tahay asxaabteyda waxaan idin leeyahay videoga hadduu ku cujubiyey maxaa sugaysaa like saaryaa leegta culeys maaha yaa shaqo ma kaaga baahna lacagna ma kaaga bixisa ajirna waa ka helaysaa waa ujeedaa hilibkeenii cabitaankaas quruxda badan aan ku cabeynaa waa idiin soo gudbi doonaa iyo saladkaas waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi